بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون داود يال إلى هانتين با ميل كستو موقعي عودكي ودين كسو غادا يو كسو دوادا وحي ورنغا سو غادا جيغا سومالي دوكتو يو غودهان دونيدا انتيدا كالي halka aad wararkaasi si toos ah kala socotaan waa xarunta guud ee telefishinka caalamiga ee badda 24 TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda waa deegaanada Somaliland warka waxay la socodsiinayaan anigoo Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame qodobada aad warka ku daawan doontaan ku ugu doorka roole waxa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka qayb galay shirka ururka midowga Afrika oo lagu qabanayo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dambaal tacsiya u diray marxuun Baashe Yuusuf Cadde oo habeenkii xalay ahayd ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland taliska ciidanka Mareykanka ee Africom ayaa ka hadlay duqeymo laga fuliyay Jubbada Hoose taliyaha booliska gobolka Awdal oo sheegay dadkii ka dambeeyay weer lagu qaaday saldhig ku yaala magaaladaasi ceelasha biyaha ee magaalada Saylac oo laga wareejinayo gacanta shacabka xulafaysiga maayarka iyo barasaabka magaalada Salal iyo qayladaan ka soo yeeraysa shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaaladaasi warbixin ayaan idinka haynaa wasiir hore oo ka tirsan xukuumadii Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay Sheekhul Beledka degmo ganacsiyeedka Togwajaale daawadayaal saaxiibayaal kuwaasi waxay hayn qaar ka mid ah qodobada warka imikii haatan isku diyaariyo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan